calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh. Channelka aad iga daawanaysaan waa Fatech. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay NFT. Wari intaad internet isticmaalaysay ama aad Facebook ama YouTube ama TikTok waxay ahaadaba internet ku jirtay oo telefoon haysatay ma maqashay NFT. Haddaba NFT ayuu muuqaalkeena maanta ku saabsan yahay. Fadlan inta aan muuqaalka u guda galin ka hor haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro oo gambalka furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada muhiimka ah ee ku soo gudbiyo. NFT waa website aad ugu shaqaysan karto lacag kaliya adigoo jooga gurigaaga kaliya isticmaalay telefoonkaaga. Haddaba haddii aan sharaxaad guud idinka siiyo, NFT waa markii aad talented tahay. Haddii aad tahay qof artist ah ama haddii aadan ahayn xitaa kaliya waxaa loo baahan yahay inaad naqshad fikradaada ka keento kabacdi aad geliso NFT kuna hesho lacag aanan macquul ahayn. Marka hore sidee ayaad iskaga register kartaa NFT? Muuqaalka dhammayso oo nala joog ilaa dhamaadka muuqaalka si aad ugu faa'iido una share garay saaxiibada si ay eegan ugu faa'iidaan. Haddaba sida aad iskaga register karto NFT waa marka hore inaad tagto Chrome mobile-kaaga marka aad tagto waxaad gelinaysaa website la yiraahdo OpenSea. waa website-ka ugu weyn ee NFT isticmaalo. Haddaba OpenSea markii aad qorto kabacdi waxaad ku dhufanaysaa qaybta kore ee 3 dots-ka. Qaybta kore ee 3 dots-ka marka aad ku dhufato waxaad ka sii dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay create aad ku dhufanaysaa. Haddaba ma ahan in aad application-ka marka hore register karto hab fudud aad isku register kartaa. Marka hore halkan ayuu sidan ku keenayaa, wuxuu ku dhahayaa you need a crypto wallet to use OpenSea ayuu ku dhahayaa. Crypto wallet waa wada garanaysaan. Haddaba waxaad ka dooranaysaa MetaMask ayaa popular ah oo inta badan la isticmaalaa. Haddaba haddii aan sharaxaad yar idinka siiyo MetaMask waxaad ka helaysaa Play Store-ka oo Play Store-ka ay dhex taala MetaMask ayaad qoraysaa kabacdi waad helaysaa. Sida halkan ugu wada jeedaan MetaMask ayaad ka helaysaa Google-ka ama Play Store-ka waad ka helaysaa. MetaMask waxaa soo degsatay in ka badan 10 milyan ayaa soo degsatay oo waxay ka caawinaysaa in aad NFT-gaada ugu samaysato ama aad halka ka ogaato xogtiisa. Haddaba haddii aan u soo laabano mowduuceena oo aan ku dhufanno MetaMask, marka hore waxaa muhiim ah ama qasab ah inaad MetaMask la soo degto waxaadna ka helaysaa Play Store-ka. Haddaba wuxuu ku dhahayaa Use Activity oo Chrome dooranaysid oo waxaad dooranaysaa haddii uu MetaMask ku soo degsay MetaMask aad ku dhufanaysaa. MetaMask marka aad ku dhufato MetaMask-ga wuxuu marka aad soo degsato wuxuu ku dhihi doonaa in qaybta sare wuxuu kugu qori doonaa xogtaada ku kaydso, qaybta hoosena wuxuu ku dhihi doonaa Create Wallet ayuu ku dhahayaa. Qaybta hoose calaamadda buluugta saaran tahay ee Create Wallet ayaad ku dhufan doontaa ama aad garaysan doontaa. qaybta marka aad garaysato wuxuu ku dhihi doonaa password gisho oo ID cusub iyo password cusub gisho ayuu ku dhahayaa. kabacdi marka passwordka iyo ID-ga aad gishato kabacdi ayuu wuxuu ku soo saari doonaa erayo said u badan. ereyadaas screenshot inaad ka qaado haddana ma fiirin kartid oo MetaMask sidiisa banaanba ma ogolo in la record gareeyo. Haddaba kor ahaan ayaa idinkaga sheegaya oo sharaxaad idinkaga siinaya. Haddaba uu diidan yahay MetaMask-ga inaan haddaba record gareeyo, balse hadda aniga hore ayaan u samaystay oo marka kula sameynayo ma ogolo record oo wuxuu diidayaa in la ogaado xogta MetaMask-gaaga. haddaba sida halkan ugu wada jeedaan MetaMask-ga gudaha ayuu noo keenay account $0 ayaa noo saaran. haddaba adiga wax kale ma dooranaysid oo halkan markuu sidan ku keeno waxaad ku dhufanaysaa qaybtan geeska ee 3 dots-ka aad ku dhufanaysaa. kabacdi marka qaybtan ku dhufato NFT-ga sidan ayuu ku soo saari doonaa. sidan marka uu ku soo saaro waad ka soo laabanaysaa oo waxaad ku dhufanaysaa qaybtan kore ee 3 dots-ka. qaybtan kore ee 3 dots-ka markaad ku dhufato waxaad ka sii dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay browser ayaad ka sii dooranaysaa. qaybta ay ku qoran tahay browser marka aad ku sii doorato aniga OpenSea ayaa horey ugu sii jiray oo sidan ayuu ii keenayaa. kabacdi wuxuu ku dhahayaa create a new item ayuu ku dhahayaa abuur NFT. waxaad abuuri kartaa NFT oo sawir ah iyo NFT oo audio ah ama 3D model xitaa waad abuuri kartaa. file supported JPG PNG waad wada garanaysaan, GIF, SVG, MP4, Web, MB, MP3 waxaan dhan waad abuuri kartaa. size-kana 100 MB iyo wax ka badan. haddaba sida halkan ugu wada jeedaan email link iyo waxyaabahan ayaad buuxinaysaa, weliba description ayaad ugu samaynaysaa sababtoo wax walbo adduunkan yeelo description waa loo sameeyaa ama qaaxitaan. haddaba
markaad waxaasoo dhan buuxiso unlock contact ma taabanaysid oo unlockta markaad sawirka samaysid kabacdi ma taabanaysid oo sida ay ku aanaysaa. kabacdi halkan ayaad ku dhufanaysaa create, kabacdi wuxuu ku galayaa qaybtan geeska ah ee NFT-ga ayuu sawirada ku galayaa oo waxaad ka maamulinaysaa NFT-gaaga ayaad halkaa ka maamulinaysaa kaliya adigoo isticmaalaya taleefankaaga. kabacdi sawirkii markii aad samayso halkan ayaa sidii kugu soo galayaa, kabacdi halkan ayaad ka maamulinaysaa oo lacagtaad ka shaqaysay iyo waxyaabahaasoo dhan halkan ayaad ka fiirinaysaa. marka halkan ka fiiriso waxaad ka helaysaa lacag. haddii aad sawirkaaga u noqdo mid aad ku hesho lacag waxaad kaga bixi doontaa faqiirtinimada. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe inoo saar. haddii aad nala soo joogtay ilaa dhammaadka muuqaalkana waad ku mahadsan tahay. wixii su'aal ah oo aad qabtidna nooga reeb dhanka hoose ee commentiga si aan kugu soo jawaabo ama aan kaaga siiyo wax falcelin ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.